السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. badda dhimatay ama badda meydka waa bad cusbadu ku badan tahay oo u dhaxaysa Falastiin iyo Urdun waxayna ka xigtaa Falastiin dhanka galbeedka Urdunna dhanka bariga waxay hoos u qodan tahay 306 mitir waxayna ka milix badan tahay badaha kala 7 jeer laab waxayna gaadhaysaa milixdeedu 37% waxaan idin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah xaqiiqooyinka la yaab kale ee ku saabsan baddan ee sii daawo muuqaalka oo dhameystiran milixdeedu oo aad u badan darteed ma awoodaan xayawaanada iyo dhirtu inay ku dhex noolaadaan baddan sidaas darteed ayaa loogu magacaabay baddan baddii dhimatay kumana noolaan karaan dhexdeeda gabi ahaanba wax noole ah ballaadhkeedu waxa uu gaadhayaa 15 kiiloomitir halka dhererkeeduna uu gaadhayo 50 kiiloomitir badda dhimatay waxa lagu sheegaa inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan caalamka waxaana soo booqda dad badan oo dalxiisayaal marka la eego kitaabka Injiishuna waxa uu sheegayaa in baddan dhimatay ay hoy u ahayd Nabi Daawud calayhi salaam baddan gudaheeda waxa ku taala meelaha biyuhu ku jiraan ee loo isticmaalo daawo ahaan meelahaas oo ah meelihii ugu horeeyay ee laga asaaso adduunka waxaana asaasay boqorkii lagu magacaabay Great Herod waxa laga sameeyaa waxyaabo badan macdanta ku jirta baddan waxyaabahaas laga soo saaro gudaheeda qaar ka mid ah waxa laga sameeyaa fertilizers ama bacrimiyaal qaar ka midna waxa adeegsan jiray faraacintii hore oo ku kanfi jiray meydadka halka qaar ka mid ah waxyaabaha laga soo saaro baddan laga sameeyo waxyaabaha lagu qurxiyo ee la mariyo jirka haddii aad booqato baddan ha ka warwarin dabaasha suurtagal ma aha inaad ku qarqoonto ama ay ku liqdo waxaanad iskaga dul sabaynaysaa dusheeda xitaa haddaanad aqoon dabaasha culayska biyaheedu waxa uu gaadhayaa 1 litir 1.24 kilogram waana culays aad u sareeya oo ka dhigaya biyaha inay awood u yeeshaan inay qaadaan oo iska xijiyaan qofka inkastoo uu leeyahay culayskiisu waxa ku yaala halkaas Conton Hotel oo ay leeyihiin Yuhuudda degan Falastiin oo ku yaala xeeliga baddan waxaana la dhisay sanadkii 2012 waxaana lagu kharash gareeyay lacag gaadhaysa 290 milyan oo dollar waxa sidoo kale ku yaala 9 hotel dhinaca wadanka Jordan ama Urdun kuwaas oo ka kooban 2800 oo qol marka la eego inaanay baddan ku noolaan karin xayawaanada ku nool biyuhu sidoo kalena waxay ka ilaalisaa biyaheeda ku noolaanshaha fangayga iyo bakteeriyada way sii badataa hoos u qodnaanshaha baddan sanad walba in u dhiganta 1 mitir markii koobaad ee la qiyaasay hoos u qodnaanshaheedu wuxuu ahaa sanadkii 1927 imikana waxa la socdo oo isha ku haya machadka macdanta iyo baadhista biyaha badaha waxayna sheegayaan daraasaduhu in mustawaha ama meesha ay taagnaayeen biyaha baddani ay hoos u dhaceen wax ka badan 40 mitir marka loo eego halkii taagnaayeen kontomaadkii qarnigii hore waqtigan hadda la joogo waddanka Urdun ayaa waxa uu ka fulinayaa mashruuc ay ugu magac dareen badda cas badda dhimatay mashruucan gudihiisa waxa la sameeyaa dhuumo dhararan oo ka imanaya magaalo xeebeedka Caqaba waxaana la dhex marinayaa dhuumahaasi badda cas ilaa laga gaarsiinayo meesha lagu magacaabo Liisaan ee ku dhex taala badda dhimatay inta kadib biyaha wanaagsan waxa la siinayaa wadamada Urdun iyo Falastiin inta Yuhuuddu degan yihiin waxaana la milix saarayaa biyaha badda dhimatay ee milixdu ay ku badan tahay daawada haddii uu ku qanciyay muuqaalku like saar hana hilmaamin haddii aad ku cusub tahay channelka ogaal cusub inaad subscribe saarto waad mahadsan tahay